dadka adduunka ku nool baa waa afar qayboodba waa imisa afar qaybta koobaad waa nin adduunka dusheeda inta la joogo jannu ku jira maalintuu dhintana laakiin naar buu galayaa kow ka labaad adduunka inta la joogo cadaab buu ku jira maalintuu dhintana cadaabkii weynaa buu galayaa laba ka saddexaad adduunka inta la joogo cadaab buu ku jira cadaab ayuu ku jira laakiin markuu dhinta jannu galayaa ka afraad adduunka intuu joogo jannu ku jira maalintuu dhintana jannadii weyneed buu galayaa dadka adduunka ku nool waa afartaaba si kale haddaan u dhigo mid waxa weeyaan waa janno ku sug mid waxa weeyaan waa cadaab ku sug midna waxa weeyaan waa cadaab janno ku sug midna waxa weeyaan waa janno cadaab ku sug laba gaaladay khusaysaa labana muslimiintay khusaysaa labada gaaladan horta inii macnaynaya dhegaysta waa gaal weeyaan laakiin tharwa ilaahay siiyey dhaqaala ilaahay siiyey hanti buu leeyahay oo gaalnimada waxa u dheer waa hanti gaalkaasi adduunka dusheeda jannadiisii buu ku jiraa maalintuu dhintana cadaabkii weynaa buu ku dhacayaa addunya sijnu lmu'min wa jannatu lkaafir say janno adduunyada ugu tahay kaafirka waa kaafirka hantiilaha laanna jannadiisu waa maxay halkan adduunka intuu jooga wuxuu doonuu samayn haba ka xaaraan maaha waxau doonuu cuni waxau doonuu cabbi waxau doonuu daawan meeshuu doonuu mari suu doonuu u fuuli suu doonuu u socon cidduu doonuu u tegi wax haba yaraatee soo joojinaya oo qabanaya haba yaraatee ma jiro shahwadiisa adduunka dusheedu ku gudanaya kaas marka jannadiisii halkan weeyaan isaga bimacnaa shahawaadkiisii adduunka dusheedu ku gudanaya weeyaan waxau doonuu samayn waxau doonuu cuni waxau doonuu cabbi dharkuu doonuu xidhan suu doonuu timaha u xiiran meeshuu doonuu tegi waxau doonuu fuuli siduu doonuu u hadli halkan weeyaan jannadiisii isaga laakiin maalintuu dhinta maxaa u dambaysaa darhum ya'kuluu wayatamatacuu wayulhihim alamalu fasawfa yaclamuuna baa ilaahay yidhi gaalada ha cuneen baa ilaahay yidhi iska dhaaf ha iska cunaan oo ha iska tuntaan oo ha iska raaxaystaan oo hididiladuna ha degto hididiladu waa maxay waxaabaan samaynay waxaabaan samayn doonnaa waxaabaan gaadhnay waxaabaan soo wadnaa kolba cilmi baan gaadhnay macluumaad kalaan keenaynaa horumar baan adduunka ku soo biirinaynaa ilaahay baa la ilowsiinayaa laakiin waxaa ilahay yidhi gadaal dambayse ogaan doonaan baa ilaahay yidhi afara'ayta in mattacnaahum siniin uma jaa'ahum ma kaanuu yuucaduun ma aghnaa canhum ma kaanuu yumatacuun ka warran baa nebi maxamed lagu leeyahay haddaan adduunka dusheeda in yar ugu raaxayno kuwaas kadibna wixii loo yabohay uu ku yimaado geeridii baa ku imanaysa qofka ajashii baa ku daynayn deedna maxaa ku xiga tamatucii adduunka dusheeda ay ku soo raaxaysteen hadhow waxba uma tarin baa ilaahay way iloobi doonaan kam labithtum fi lardi cadada siniin qaluu labithnaa yowman aw bacda yowmin fas'al ilcaaddiin qaala in labithtum ilaa qaliila low annakum kuntum taclamuun afaxasibtum annamaa khalaqnaakum cabatha waannakum ilayna laa turjacuun banka qiyaama markaysa soo taagaan baa la weydiin la odhan doonaa arlada dusheedii imisaad ku soo nagaateen markaabay odhan doonaan maalin ama maalin barhkeed aawe tamatuci adduunka kusoo tamatuceen ay ku soo raaxaysteen ma jiro marka gaalka tharwada haysta ee hantiilaha bimacnaa jannadiisii waa halkan jannada loo jeeda waa maxay shahawadiisa halkanuu ku gudanaya wuxuu doono dhan waxa nafsadiisu ay doonto oo dhan halkanuu marka ugu samaynayaa markuu halkan ku dhammaystana waxa ilaahay yidhi fasawfa yaclamuuna ma markaa u dambaysa kaasi waa kaas gaalka labaad waa gaalkee waa gaalka faqiirka waa gaal laakiin gaalnimadiisa faqri baa u dheero derbi jiif weeyaan meelaha buu khamriga intuu cabuu derbiyada ku dhacaa adduunka dusheedii sidanuu ku yahay oo cadaab buu ku jiraa aakhire markuu tagana cadaabkii weynaa buu gali walciyaadu billah xadiis waxaa jira fain ashqa alashqiyaa man ijtamaca calayhi faqru dunya wacadaabu alaakhira fii shucab aliimaan buu ku sheegay imaam bayhaqi raximahullah dadka adduunka soo maray ka ugu khasaaraha darani waxa weeyaan ee ugu hooga badani waxa weeyaan
waa ninka adduunka dusheeda faqri ku haleelay aakhirana cadaabtii aakhira lagu tuuro walciyaadu billaah labada kale muslimiintay khuseeyaan waa mid adduunka dusheena cadaab buu ku jiraa laakiin markuu aakhiro tago insha allah jannuu gali ilaahay raxmadiisa ka quusan mayno waa muslim adduunka dusheeda islaamnimada kuma dhaqmo macsi buu iskaga jiraa qaflad buu ku jiraa diinta dhinac uu ka haystaa dhinacna diinta kama haysto adduunka dusheeda cadaab buu ku jiraa waxa maanta adduunka dhiig daadanaya oo dhiigga islaamka haddaan maanta lahaa innaka dalkeenna soomaaliya aan ka soo jeedno kulligeen soomaali baan iska wadanahe waa dad isku caqiide ah isku luqo ah isku madhab ah isku diina isku dal ah waa qowm kaliya ku nool waddankeenna waddankan imse qabiil baa ku nool imse ummad baa ku nool yaa sheekh dhowr iyo 40 sooma wax qabiil isku leeyahay maad aragteen may limaada inagoo muslimiin oo shahaadana qabiilada iskugu dhameyn oo meel walba aad ka maqlaysaa mar walba midab dagaal ba ka dhacay oo yaa islaynaya reer xadiye iyo reer qafa islaynaya ma sabab waa tarku diin weeyaan maadaama diinta sidii la doonaya aanu qabsan weynay cadaabkii adduunka ku jirnaa ogaada cadaabkii adduunka ku jirnaa in dad muslimiina oo shahaadanaya dhiigooda ay isxalaalshadaan ay isdhacaan oo ay isboobaan oo ay isku xadgudbaan oo isxasdaan oo isxantaan oo isdhammeeyaan oo qofka kale dhiiggiisa u xalaashado maxaa keenaya waxa weeyaan waa godobta diinta islaamka laga gala lagu dhaqmi waayey markii diintii la baran waayey laisku xukumi waayey laga shaqayni waayey lagu dhaqmi waayey laisku xidhiidhini waayey ilaahay jalla wacala muxuu sameeyey markaa quluubteennii baa ilaahay markaas ku dhiftay ninka arkaya waddankan dhowr iyo 40 qowmiyadood baa inagula nool qolo la hadlaysa ma jirto nabad baa lagu wada nool yahay innakeena nabad baa ku wada nool nabad baan kula nool lah oon arsaaqad ku haysanaa oon amni ku haysanaa oon diinteenni si xorriyada aan ugu haysanaa waddankeennii aan ka soo jeednayna ayadoo dadkeennu 100% muslim isku af keliya ay wada yihiinna cadaab baa ku socdo cadaabkaasi waa qabiilku waa nuuc min alcadaab weeyaan لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض بو نبي يقول أنا قد بدأ قال لي ما دبها وقول نقولين أبو رسولك يدي بركي نكلا أو قورتك كجر أو ديجي ناس على شتان هذا أركت أمة إسلام شيء نسبة شيء نيسا أو نبنيك كلا ديجي سو حلال شدي حديث قال وحنا بيقول شيء يا إسلام ما هو حاس قال لي ما دب لو نقول الجاهلية دي وقاعدة عذاب كمركا muslimiinta diinta aanan ku dhaqmin ay ku jiraan dagaalka qabiilka kamida qaxootiga kamida qaxa ayaa kamida ummadda 8 albaab jahannama loo furay ee dhulka gaalada u soo socota ayaa kamida waa cadaab nuuc min alcadaab inuu muslimku yiraahdo maanta dhulka islaamka nabadi ma taalo oo tacliini ma taalo oo dhakhtar fiican male oo nabadgelyo ma taalo oo arsaaqad ma taalo aye arsaaqada ilaahay baa haya walaakiin isagu wuxuu yiri أرزاقات يوروب بيت الله أمنك إلهي باهيا ولكن يسقوا حيري نبتقليد يوروب بيت الله عافماتك إلهي باهيا لكن يسقوا حيري عافماتك وحويا لا يوروب يا مريكا بويا الله وحي إلهي لها هاي أظن نسبة الصومة هذا تكلم ووحي إلهي كابدا مركا ديقا تذكيني إنك بحي يدولك إنك بحي يدولك وضعوا بحي ودن مانتا وحنو نقرأ بقولك سيديتنا متضباتا مجتمعي إنك تقويكو داينو وقادا in yar baa ka nool maanta in yar baa damiir leh oo dadnimadii diintoodii si haysata shalay mu'tamarkii dhamaaday culimadu ay soo gabagabeeyeen ayaan dhalinyar ka timid Minnesota ka yimaadeen iyagoo dhowr ah markaas aniga iyo Sheekh Cabdirashiid ayay u yimaadeen oo markaa bay miskiin nagula tukadeen way noo warameen markaa ana 2004 bay ugu dambeysay qaaradaas waxay yiraahdeen bariga aad timaadeen waan maqalay dadku way fiicnaayeen oo muslimiin bay haayeen oo dadku masaajidda u badnaayeen laakiin maanta xagga kale beerta loo batay xagga beerta ma taqaanaan xagga balwada iyo khamriga iyo fisqiga loo batay bay yiraahdeen ee noo soo gurmada noo kaalaya waa dhalinyar waliba qaarkood halka bay ku dhasheen dhulka gaalada oo muslimiintu ay ku siiyaan waa cadaab ugu ma ha raxmad
marka muslimka diinta aanan ku dhaqmaynin adduunka dusheeda cadaab buu ku jiraa, laakiin aakhire markuu tago arrinkiisu ilaahay buu hor yaallaa. in shaaa cadabahu, hadduu doonana ilaahay waa cadaabi, hadduu doono ilaahay waa u naxariisan. taasi waa baabka ilaahay bay u taallaa. laakiin ka afraad baan u socdaa i dhegaysta. waa kee? waa mid adduunka dusheeda janno ayuu ku jiraa, markuu dhintana jannadii weynayd buu galayaa. waa kee? waa muslim mu'mina oo adduunka dusheeda ilaahay sharcigiisa ku dhaqmaya, oo diinta ilaahay ka shaqaynaya, oo diinta ilaahay ku dhaqmay, oo ummadda baraya diinta, oo diinta noloshiisa ay ka muuqato. muslimkaasi adduunka dusheeda wuxuu ku jiraa janno, maalintuu dhintana jannadii weyneyd buu geli doonaa insha allah. dhahda yaa uu diyaara janno ku sug inuu helo insha allah. dhahda janno ku sug, ilaahay hayna siiyo. ibraahim aladham raxmat ullaahi calayh ayaa laga sheegay isagoo 3 maalmood aan cunto cunin ayuu odhan jiray, low yaclama almuluuku wa abnaa'uhum maa naxnu fiihi laja'laduuna bisuyuuf. waa nin 3 maalmood cunto aanan helin oo aanan cunin, oo masaajid iska ictikaafsan, mar ummaddu cilmiga baraa, mar isagaa culummada wax ka barta, mar ilaahay buu baryaa, mar dadku ilaahay xaggiisa ugu yeedhaa. 3 maalmoodna waa qatan yahay. waxa uuna leeyahay dhegayso, boqorrada iyo wiilashoodu nolosha aan ku jiro hadday ogaan lahaayeen seef bay igaga qaadan lahaayeen buu yidhi, ama jadal. macaanka aan dareemaya raaxada meesha laga raaxaysto maaha dhar fiican oo jidhka loo xidho, aqal fiican oo la dhisto, gaadhi cadoo la wato, magaasaan weyn oo la furto. may raaxadu waxa weeyaan waa qalbiganoo ilaahay jalla wacalaa ku tacalluqma, ood garataa waxa adduunyada ka dhacaayoo dhan waa qadar ilaahay. adigana wixii ilaahay kuu qadaray mooyaane wax kale kugu dhici maayaan, wixii ilaahay kuu qoray mooyaane wax kale heli maysid. waa inaad garataa ilaahay jalla wacalaa qof kastoo adduunka jooga wixii ilaahay u qadaray buu helaya, wax kale heli maayo. marka janno allah inooga dhiga adduunka, janno ku sugo insha allah. dhahda bilaal alxabashi radia allahu canhu ardaah markuu dhimanayay xaaskiisu ku dul barooratay ku tiri waa xasrataah. markaasuu indhaha kala qaaday, naa maxaad leedahay? waa dumar iska qalbi jilicsanoo markaa waa iska barooratay. baroortan iyo baroor diiqdan iska dhaafo, waxaad tidhaahdaa waa farxataah, maanta waa farxad iyo dha buu yidhi. markaasay ku tiri maxaa ku farxa? waa adiga iga dhimanaya sakaraadkii baad. wuxuu yidhi hadan nalqa alaxiba muxammadan wa saxbah. anigu baritoole qofkaan la kulmi ma taqaanaa? muxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii baan la kulmayaa buu ka yidhi. kun faraxsan bay adduunka ka baxayeen oo dhimanayeen. lanna noloshan adduunyada iyaku may dayicine waa ka faa'iidaysteen, kumay ciyaarine ilaahay bay ku garteen, kumay shahawaadkooga kumay raacine axkaamta ayay raaceen. adduunyada may camirine aakhiraday camirteen. aakhiradii markay hagaagsadeen noloshii adduunyaduna waa sii hagaagta. markaas innagu maanta waxaan isku daynay inaan adduunyada dhisno oon qurxinno, waan dhisnay, haddana dadkii maanta raaxa ma hayaan. qof kasta waa calacalaya maanta.